adduunyada oo dhan waxaa ka jira halgan aad u xooggan oo aadanuhu doonayaan inay iskaga dhacaan wax kastoo muhiim ah laga soo bilaabo afkaarihii xuxumaa ee gumaysigu ay kula kaceen wadamada qaaradda Afrika kuwaasoo ay dad iyo duunyaba ka dhaceen waxaa weli sii socda kala boobka waxyaalaha muhiimka ah ee ku jiraan dadka maskaxda fiican iyo kuwa waxbarashada horumarka ka sameeyay TOC dheertahay in mar walba la kala boodayo kheyraadada waaweyn ee bad iyo bariba ku jira marka hore sida wada ku soo dhawaada barnaamijkeennii warwareyn oo aad ku maqli doontaan qodob kale oo xalad leh oo ka mid ah barnaamijyada daraasadaha iyo cilmi baadhisyada aad bartan kala socotaan mar walba iyo meel kasta dunidan iyo koomkan aynu saaranahay dadyoga aadanaha ee kala duwan waxa ay wax u kala boobaan sida ay u kala xoog yihiin ama u kala ibxsan yihiin marar badan dadka ilbaxa isugu yeeray waa kuwa iyagu dhinaca aqoonta iyo fikradaha u janjeera dabeedna markii dambe ikhtiraacay nidaamka warshadaha ee adduunka TOC dheerta inay ku darsadeen tiknoolajiyada dayax-gacmeedada diyaaradaha iyo qalabka kale ee aadanuhu maanta isticmaalo waxaase arrimahaas oo dhan laga wada faa'iiday waa dad barbilowga dadka cadaanka ah markay gacanta sare ay yeesheen waxa ay dhacday markii quwadii kale ee la tartamaysay ee dhinaca Fariska iyo kuwii kale muslimiinta ay jilbaha dhulka dhigteen taariikhaas wixii ka dambeeyay dunida oo dhan waxay ku soo qaadeen weeraro boob ah kuwaasoo ay ku hoos jireen awoodihii duulamada ee gumaysiga iyo afkaarihii foosha xumaa waxayna la yimaadeen aragtiyo waaweyn oo ay dadka ku boobayaan dunidan ay ku dhacayaan wadamada qaaradda Afrika dhamaantood waa la wada boobay isla markaana waxaa laga qaatay agabyo muhiim ah hanti la yaab leh iyo waxyaalo maguurta si kale haddii loo dhigo wadanka Soomaaliya lama oga cidda iyo waliba sida loo boobay waxaase la fahansanyahay in waxyaalo aad u badan dalka Soomaaliya laga boobay oo kamid tahay fool maroodiga cudbiga qaar kamid ah ciida uraniumka iyo qaybo kamid ah wax loo yaqaan abuuro dabiici ah oo wadankeena laga heli jiray taasoo inagu aynaan cilmi u lahayn TOC dheertahay in dadka Soomaaliyeed isku dayadii ugu dambeeyay lagu dayay kamid ahaayeen in bulsho ahaan lagu faafiyo diimo kale iyo dhaqamo kale taasoo lagu guuldareystay laakiin wax kasta oo kale way ku guuleysteen reer galbeedka iyo gumaystuhu oo ay ku jirto inay kala qaybiyaan dadka Soomaaliyeed inay sii horiyaan cunfigii iyo curfigii ku salaysnaa qabiilka iyo sidoo kale inay wadanka kala googooyaan oo ay qaarkood siiyaan ama muquun ahaan ay ugu daraan dalal kale markiisa ay dunidu badankeeda ay xorowday isla markaana ay casri noqotay lama kamay harin aragtidoodii waxaase jiray in dad badan oo qaaradda Afrika ku dhaqan gaar ahaan kuwa galbeedka oo ugu dambeeyeen dadkii reer Nigeria ay ka daba tageen waxyaalihii qaaliga ah ee laga xaday iyadoo wadamada qaarkood laga soo dhurayo maalin walbana laga soo saarayo tuugadii ay qaateen wadamadaasi markay xoog ku haysteen dalka Nigeria ayaa dhawaan boqolaal shay oo muhiim ah isla markaana qaali ah oo boqortooyadoodii halkaas ka tali jirtay Benin loo yaqaanay boqortooyadii loo jeeday Kingdom of Benin ay ogaatay xogo aad iyo aad u waaweyn iyo agab aad u badan dhawaana waxa ay keeneen xogo aad iyo aad u badan iyo agab xoogan kadib markii dabagal ay sameeyeen wadamo badan oo kale ayaa iyaguna ka daba tagay alaabo laga dhacay oo laga tuugeystay kuwaas reer galbeedka ay qaatay inkastoo qaaradda Afrika aysan kali ku ahayn dadka la boobay sibaha loo boobay kuwa ugu daran oo waayo xataa dad ayaa laga gumaystay lagana kaxaystay iyadoo dalka Mareykanka iyo suuqa gacanka Caribbean ku caan ku ahaa kale iibsiga ummadaha madow iyo san madoobaha halkaas oo dadka maanta Mareykanka loo yaqaan African American ay yihiin kuwo sida xoolaha loo kala gadan jiray ama loo soo kala gatay adoonsiga foosha xun ee lagu la kacay dadkaasi ma uusan ahayn kuwo intaas ku joogsaday markii dambe xataa adduunku casriga noqday wadamaduna xataa ay xoroobeen kheyraadkooda ayaa la boobay kheyraadka la boobaya inagu aynu naqaano waxa laga yaabaa kaliya inaad ka fikirto kalluunka shidaalka agabka kale iyo waxyaalaha kale beeraha lagu hagaajisto xayawaanada iyo fool maroodiga dahabka iyo fidada laakiinse hadeerta waxa sii dheer dadka oo laftooda kala booday hay'ad dhinaca horumarinta cuntada iyo nolosha wax ka qorto oo ka dhisan wadanka Kenya lana yiraahdo the food for tough ayaa cilmi baadhis ay dhawaan sameysay waxa ay ku sameysay ama ay ku eegtay halka ay ku dameeyeen ardayda kaalmaha hore ka gashay natiijadii dugsiyada sare ee wadanka Kenya waxayna sheegtay in ardaydaasi waxbarashadooda iyo aqoontooda ku dhamaato wadamada dibadda arrintaasi waxay markii ugu horeysay dabool ka qaaday in kaliya aysan reer galbeedka ahayn cidda boobta kheyraadka dadka iyo waliba dadka fariidada kuwa markaas maskaxda badan ee xirfaanta iyo kuwa waxbarashada ku fiican laakiin sidoo kale tahay in wadamada horumaray oo dhan markasta ay horumar helaan shirkadoodu waaweyn ay raadiyaan dad wax ku soo kordhin kara xogtan oo ciwaan looga dhigay xagee ku dambeeyeen ardaydii soo dadaashay ee maskaxda sare leh kaalimaha horena ka galay tacliinta dadaalka badanna lagu bixiyo ee wadanka warbixintan oo lagu dabagalay xogaha ardayda kaalmaha hore ka gashay 20 sano ee la soo dhaafay
ama kalmaha hore gashay 20 sano la soo dhaafay ayaa furaysa dood cusub oo xoojinaysa sida maanguurka Afrika uu yahay mid badan oo aqoontooda iyo dadkooda wax bartay ay ugu haajirayaan wadamada horumaray iyadoo baahida dalalkoodu ay u qabaan ay wali sareyso. Timothy Theora oo dugsiga sare ee Alliance ka baxay ahaana ardaygii ugu sareeyay natiijadii sanad dugsiyeedkii 1998 hadda waa injineer dhinaca kombiyuutarka kana shaqeeya Mareykanka halka sanadkii ku xigay ardaygii ugu sareeyay oo ahaa Samuel Gikandi oo ka howlgalo Hong Kong. sidaas la mid ah ardaydii sanadihii ka dambeeyay kaalmaha hore galay ayaa dhammaantood hadda ku kala sugan wadamada Australia, Mareykanka, Europe, Asia iyo Koonfur Afrika ayna u wada shaqeeyaan shirkadaha ugu waaweyn ee dunida. Shirkadda xogtan soo saartay ayaa sheegtay in marka aad aragto sida wax u socdaan aad fahmayso sababta ardayda kaalimaha wanaagsan galaa uga haajirayaan wadankooda Kenya. jaamacadaha dibaduna ay waxbarasho lacag la'aan u siinayaan sida Marian Cherry Prasa oo ahayd ardayadii kaalinta hore gashay sanadkii 2019 haddana caafimaadka ka barata jaamacadda Harvard kuna nool magaalada Boston ee gobolka Massachusetts dalka Mareykanka. qorshaheeduna aysan xataa ku jirin baa leeyahay in ay Kenya dib ugu soo noqoto. hadda waa biomedical engineering waxayna doonaysaa in ay ilaa heerka sare ee waxbarashada isla jaamacadan kasii wadato kadibna ay ka howlgasho wadanka ay fursad waxbarasho ka heshay oo Mareykanka dabcan. waxbarashada Kenya ayaa mid ardayda waalidka iyo dawladdu ku bixiyaan dadaal badan taasoo ka dhigaysa iskuulada wadanka goob kamid ah goobaha dunida ugu waxbarashada wanaagsan. laakiin dadaalka dawladda, ardayda iyo waalidiintu wuxuu ku dhamaadaa in aqoonyahanka u soo saaraan wadamo ka horumarsan oo kuwaas ka faa'iideysta. aqoonyahanka wadamada ka horumarsan u soo saaraan ayaa gacmahooda ka baxa isla markaana waxa ay ku dameeyaan wadamadaas ay u soo saareen ayagoo markii hore isla wadankeena soo saar. Soomaaliya barbilowgeediiba waxyaalaha ay guusha ka gaadhay isla markaana lagu xasuusan karo militariga Soomaaliyeed wuxuu ahaa inay xoojiyeen waxbarasho lacag la'aan iyo inay kor u qaadeen wax loo yaqaano iskoolo dibadda oo cilaaqaad wanaagsan dawladdu ay la samaysatay balse dadkii Soomaaliyeed waagisi noolaa abid maysan baxsan jirin dib bayna dalkooda hooyo ugu soo noqon jireen. sidoo kale intaanu warbixintan iyo daraasaadda mudanay ayaa dadka ay horfar media la hadashay ama anaga xaashi aan la hadlay waxa kamid ah taliyaha ciidanka booliiska ee dalka Soomaaliya General Xajaar oo aan wax ka weydiiyay bal hadii ay scholarship ama wadaaq waxbarasho ay u diraan arday dabadeedna waxa ay falaan waxa uu ii sheegay in dhammaan dadkii isagu intuu jagada hayay uu u diray dibadda uguna talagalay inay waxbarasho heer sare ay dalka dibaddiisa ku soo bartaan dalkooda hooyana ku soo noqdaan ayagoo xitaa waxbarashadii aan dhamaysan ay si tahriibeen oo ay wadamada kale sii galeen. waxbarashada Kenya ayaa haddaba waxay iidoon saara u tahay in laga boobiyo dadka. hay'adda cilmi baarista samaysay ayaa eeda saaraysa haddaba hanaanka siyaasadda oo aan lahayn qorsheyn ku aadan in laga faa'iideysto aqoonta gudaha ayna sabab u tahay iyadoo siyaasadda ay qabsadeen kuwa aan waxba baran oo markaasi musuqmaasuq tilooday ayna markaasi awoodda iyo siyaasadda dalka la wareegaan sida Soomaaliya haysato kale ayna kuwa shahaadooyinka sare PhD da haystay ee gudaha joogay ay yihiin kuwa faqri ah saboolnimana jidad kala taagan yihiin ishana ka eegayaan dhaqaalihii wadanka oo ay boobayaan hogaamiyaasha xadaya xoolaha dadweynaha waana tusaalaha cad ee ardayda dadaashay arkayaan aysan doonayn in sidaas oo kale ay ugu dayacmaan gudaha dalka ay lahaayeen ay ku soo dadaaleen. tan iyo intii wadamada Afrika xornimada qaateen waxaa ku badnaa hanaanka masax guurka oo dadkooda aqoonta leh ay u haajirayaan dibadda iyagoo raadinaya fursado shaqo oo ka wanaagsan kuwa wadamada u dhasheen. cilmi baaristana waxay iftiiminaysaa in ardayda wali aan gaarin heerka jaamacadda ay yihiin kuwa la ugaarsado iyadoo la siinayo waxa la yiri kansho waxbarasho oo dibadeed sidaana ay ku cidleeyaan dalkooda ay wax u barteen. haddaba dadka Soomaaliyeed ee da'yarta iyo dadka caqliga u saaxiibka kuwa kale ee bartay shuruucda iyo culunta kale ama se kuwa magaca dawladda Soomaaliya ku helay scholarship-ka ama deeqda waxbarasho waa inay dalkooda hooyo dib ugu noqdaan markaan ay ku bixiyaan wax loo yaqaano dabcan dadaal iyo juhdi tiyo haddii aan la helin dad aqoon sare leh isla markaana kansho u heli kara inay wax hagaajiyaan abid cid waxaynu hagaajinaysan jirin. meeshana waa in laga saaraa dadka musuqmaasuqa aqoon darrada iyo sidoo kale eexda qabiilka ku intifaacay balse aan dalka meelaba u wadin. amaanal